في مثل هذا حارت الأفكار وكبى الخيال وتاهت الأشعار وتنفست تلك القلوب مشاعرا للسعد في أيامنا تذكار. فالشكر حان وأجهشت عيني على دار لروحي في رباها دار وكأن مثل هذا حارت الأفكار وكبى الخيال وتاهت الأشعار وتنفست تلك القلوب مشاعرا للسعد في أيامنا تذكار. فالشكر حان وأجهشت عيني على دار لروحي في رباها دار وكأنني بنت ستشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشا شرفتي نغا مدن ee ku xiran janalka Al-Huda Herbal Medicine waxaan idin soo gudbinaynaa barnaamij ku saabsan faa'iidada ku jirto malabka. Barnaamijkani waxaa suuro geliyay isbitaalka Al-Huda Herbal Medicine wuxuuna u talagalay dadweynaha Soomaaliyeed ama macaamiisha Al-Huda Herbal Medicine inay ka faa'iideystaan faa'iidada uu malabku u leeyahay. Al-Huda Herbal Medicine oo u taagan daaweynta dadka ayadoo horay isbitaalkan loogu daaweeyay dad qabay cudurro kala duwan oo isbitaalo kale ama isbitaalada kiimikada laga soo qoostay ayuu haddana wuxuu isku dayayaa inuu barnaamij hawada u mariyo dadweynaha Soomaaliyeed kuwaas oo ay ka faa'iideysan karaan ayagoo guryahooda jooga. malabku waa daawo quraani ah sida Rabbi uu ku tilmaamay suuratul Naxli aayadda 69. Bukhari iyo Muslim waxay soo saareen xadiiskii saxaabiga Nabi sallallahu alayhi wasallam u yimid ee walaalkii ka xanuunsanaa caloosha uuna nabigu ku yiri waraabi malab mar saddexaadkiina uu bogsaday. Ibn Majah wuxuu soo saaray inuu yiri Nabiga sallallahu alayhi wasallam ogaada labada dawo malabka iyo quraanka ayadoo intaasi ka badan tahay nasuusta xagga diinta ah ee ku soo aroortay malabka. Hadda waxaa jira malabka waxyaabo badan oo daawo u yahay. waxyaabaha uu daawo u yahay waxaa ka mid ah caloosha ayuu jilciyaa, caloosha ayuu nadiifiyaa iyo xameetida, isla markaana wuxuu joojiyaa shubanka. wuxuu la dagaalamaa uuna dilaa in badan oo ka mid ah bakteeriyada. wuxuu daaweeyaa fariinnimada carruurta, fitamiin D-ga ku jira dartii. wuxuu wax badan uu ka taraa xanuunada neefmareenka sida hirgabka, qunfaca iyo qabowga. wuxuu daaweeyaa gastriga, calool ololka iyo boog caloolaadkaba. cunitaankiisa beerka iyo weliba xameetida ayuu u fiican yahay. wuxuu daaweeyaa daalka, tabardarrada iyo dhiig la'aanta. xanuunada dubka sida baxdinta, boogaha, gubashada ayuu daaweeyaa. lafa garaaca ayuu malabka daaweeyaa iyo tufta. xanuunada ku dhaca kaadi mareenka ayaa ka mid ah waxyaabaha uu daaweeyo. waxaa lagu daraa waxyaabaha la isku qurxiyo ee la marsado wejiga iyo jirkaba. wuxuu xoojiyaa difaaca jirka. wuxuu wax ka taraa kansarka. wuxuu daaweeyaa xanuunada afka sida ciridka, cunidda iyo afku qabashadaba. waxaa la yiri hadday dunida oo dhan ay fadhiisato si ay u tiriso waxtarka iyo wanaagga malabka lama soo koobi karo. wuxuu yiri Ibn Qayyim malabku waa cunto ka mid ah cunooyinka, cabitaan ka mid ah cabitaanada, daawo ka mid ah daawooyinka, macaan ka mid ah macaanada, farxageliye ka mid ah waxyaabaha lagu farxo. nalama siin asaga oo kale. waxaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkeeni gaabnaa ee aan kaga hadlaynay faa'iidooyinka uu malabku u leeyahay. barnaamijkani waxaa suuro geliyay Al-Huda Herbal Medicine. في مثل هذا حارت الأفكار وكبى الخيال وتاهت الأشعار وتنفست تلك القلوب مشاعرا للسعد في أيامنا تذكار. فيها نهلت العلم غاضا نافعا